Assalamu alaikum. Thank you all for coming here today. Thank you for your donations. We are here today for the Ogaden, the war crimes against Ogaden in Ethiopia. This is a serious issue that we must discuss and bring awareness to. Before we begin, I'd like to introduce Dr. Mohammed Gas for a little presentation introduction. barnaamijkani waa tijaabo waana si dhaba una ula jiraa Canada 6 qof aan ku ogolaanay in amnesty Canada way ay qabtaan marka 6 baan ka mid ahaa waxaan qaban lahayn labadaankii koox dib u dhacay saas uu kala yeelay next year baan in target fiican sameysano soddon kun baydan la isku keeno 2,000 buu maraya qofkii raba online uu ka geli karaa uu arki karaa uu la socon karaa gabdhaheena mid kamid ah inoo sheegi doonto anigu waxaan kamid ahaa dadkii amnesty ay kasoo badbaadisay Ethiopia sidaan uguma ololaynayay yani human rights abuse badan baa ka jira ya qofkii witness dad ajnabi ah la joogo America waan invite gareynay really time is short next year waan imanaya MP xaafadda waan u yeernay sidaas kale tuuji waana runoo deennagii baaba maaragtay yani soo iman la dadka ajnabiga time ku shaqeynaya way aqaseen yimaadaan tusaale iyo training haynoo ahaato next year baa inoo ballana ujeedada aynu isugu nimid waxaa weeye ma aha in lacag la raise gareeyo waa in la tuso amnesty iyo human rights groups inayna gobolka ogaadeen joogin adduun meesha la gaarsiin karo gabdhaheenani jaamacadda ay dhigtaan inkastoo ay first year yihiin 4 more years 5 more years bay dhigan doonaan they are going to start to advocate for human rights activity in the future inshallah and they will be working with the community very closely ayana mahad gaar aan u celinayaa marka maadaama anu aan ka mid ahaa beneficiary amnesty campaign markii abaaruhu dhaceen ee Ethiopia ay ku jirtay dagaalka Eritrea baan anna dhinaca ogaadin furan kala kaga furay oo aan raacsan abaara ka jira xagga dagaal ka jira sidaas ay marka nabadgelyada ay ku soo yeekeen ay xeerkii waana wadi doona qolahaasna waan wadi waxaan rabnaa inaan asxaabo fara badan sameysano waxaan mar labaad ku wareejinayaa gabdhuhu inay inoo kaliya yar oo 2 minutes iyo 3 minutes ay noo soo bandhigaan xaaladda balse ay sawirkay ka bixin karayaan in la wadaagaan wad mahadsantii